بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنت وعنا وناكسن دقيستيال وسود بعد برامج حولك السياسة جنرال كورعد ميديا واد markaa nooga baratay inaan idiin soo gudbino warar la xiriira arrimaha siyaasadda guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan arrimaha Soomaaliya. Barnaamijkeenana maanta waxaan markaasi kaga hadli doonaa arrimo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadda waddanka ka hor dhageystayaal. Waxaan idinka codsanayaa inaad markaa subscribe noo saartaan, like iyo share aad noogu dhufataan, isla markaana aad la socotaan muuqaalka si dad badan u gaaro. Aynu ku bilownay waxaa weli cakiran xaaladda siyaasadda waddanka gaar ahaan arrimaha markaasi ku aadan qabsoomidda shirka lagu malansan yahay inuu ka qabsoomo gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kaasoo lagu wado inuu dhex maro mucaaradka ay ku midaysan yihiin golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Kulankaas ayaan ilaa hadda suurtagelin iyadoo markaasi dhinacyadu ay weli markaasi ku heshiin la yihiin qodobada shirka looga hadlayo ajandayaasha ugu muhiimsan iyo sidoo kale goobta uu shirka ka furmayo. Maalmihii la soo dhaafay waxaa aad markaasi u soo batay wararka sheegayay in madaxdii hore dalka loo diiday inay ciidamadoodii ama ilaaladoodii la galaan gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, balse waxay markii ugu dambeysay mucaaradka xalay u suurtagashay inay galaan gudaha xarunta xalane oo ay degan yihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland, kaasi oo markaasi laga hadlayay arrimaha siyaasadda dalka oo ay halkaa shir ku yeesheen. Ilaa hadda wax oo natiijo rasmi ah kama soo bixin shirkaas oo ay yeesheen mucaaradka dhexdiisa oo ay markaasi kaga arrinsanayeen ajandayaasha ay la hortagayaan dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa wararku ay sheegeen in mucaaradku ugu dambeyntii ay iyagoo hubkoodii culus iyo ciidamadoodii wataan ay galeen gudaha garoonka, taasi oo markii ugu dambeysay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku adkaatay inay sii xakamayso mucaaradka kadib markii ay dowladdu ka andacooday in wixii ka dambeeya salaada ama 5 galabnimo ee xilliga markaasi geeska Afrika aan loo ogoleyn gudaha garoonka in wax ciidan ah lala galo, taasi oo keentay in mucaaradka markaasi 2 maalin ay hakad galaan shirkii ay ku yeelan lahaayeen gudaha garoonka diyaaradaha ee xalane ee gudaha magaalada Muqdisho. Haddaba maxay tahay xaaladda siyaasadeed iyo waxyaabaha markaasi isdiidaya qodobada isdiidaya qabsoomidda shirka iyo waxaa ka mid ah maalmaha soo aadan ayaa la filayaa inuu furmo wada hadalka u dhexeeya golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Wadahadalladan ayaa jiitamaya wax ka badan toddobaadyo sida laga dheehan karo balamaha la kala qabsaday. Ilaa hadda dooda markaasi ayaa taagan Villa Imada ama Villa Soomaaliya Imada oo ay dowladda federaalka Soomaaliya doonayso, halka mucaaradka uu doonayo hotel markaasi ku yaala gudaha xalane ee magaalada Muqdisho markaa lagu qabto shirka. Laakiin waxaa jira dhowr qodob oo muujinaya in aan daacad laga wada ahayn qabsoomidda shirka, ha yeeshee xaaladdu markaasi qasbayaan. Dooda madaleyska noqotay oo mid kasta uu taagan yahay tayada hala qaato ayaa waxay noqotay diidmada markaasi kulamada ay wajahayaan mucaaradka diidan Villa Soomaaliya oo ay ugu dambeysay qashaadkii markaasi lagu sameeyay kudlada xildhibaanada xorta ah oo markaa shirkoodii laga joojiyay hotel Jazeera ee gudaha magaalada Muqdisho kadib markii laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya ay diideen in halkaasi wax shirar lid ku ah dowladda federaalka Soomaaliya lagu qabto. Celintii ama is-hortaagii madaxdii hore ee dalka ee xalane sidii markaasi ay sameeyeen markaa lagu sameeyay madaxdii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Xuseen Roble. Dacaayadaha baraha bulshada iyo sidoo kale hadallada warbaahinta la isku marinayo oo sababay in dadka qaar ay iskaga markaasi rajo dhigaan natiijada shirka laga filan karo. Dooda dastuurka oo weli sii socota oo ay doodihii looga hadlayay baarlamaanka kaga arrinsanayaan. Doorashada oo weli markaasi shaqadeeda ay socoto ilaa markaasi ugu dambeysay jalalaqsi la geeyay
qalabka doorashada markaasi guddiga doorashooyinka ay hormuud ka tahay, taasi oo mucaaradka si weyn ay u diidan yihiin. Madaxweyne xasan sheekh ayaa isna galay safaro shaqo xilli markaasi mucaaradka oo idil ay markaasi ku huursan yihiin ama ay ku sugan yihiin gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ugu horeeyaan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland. Haddaba dhammaan qodobadan iyo qabsoomidda shirku waa kuwo markaasi isdiidaya ee markaasi su'aalo badan ay ka dhalan karaan ay ugu horeyso waxaa kasoo bixi kara inay markaasi shirku noqon karaan. Beesha caalamka ayaa iyadana ah dhexdhexaadiyaha ugu weyn ama cidda isku haysa dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cadaadis xooggan kala kulmaya beesha caalamka iyo sidoo kale mucaaradkaba. Waxay markaasi dhinacyadu ay yihiin kuwo la isku qasbayo balse aysan danaha guud ee dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aysan markaa meesha kaga jirina. Sidoo kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna tagay hoolka ama halka ay degan yihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland iyagoo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. War qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markaasi sheegay inay iska xog wareysteen xaaladda guud ee dalka, isagoo sheegay in kulankaasi diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed dalka ka jiro iyo sidii markaasi loogu baahan yahay wadatashi dhab ah loogu gudbo caqabadaha taagan. Sidoo kale madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa sheegay in imaanshaha labada madaxweyne caasimadda Muqdisho ku dhiirigeliyeen dadaalada ku aadan sidii markaa loo gaari lahaa heshiis loo dhan yahay oo dalka loogu badbaadin lahaa hubanti la'aanta iyo qalalaasaha amni ee ka dhasha khilaafaadka la xiriira doorashooyinka iyo dastuurka. Waxaa sidoo kale uu bogaadiyey markaasi labada madaxweyne sida niyad samida ah ee markaasi doonistooda ku aadan in la gaaro xal waara oo loo dhan yahay. Waxaa sidoo kale madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay madaxweynaha talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud inay markaasi la yimaado tanaasul iyo hogaamin loogu gudbi karo ismarwaaga ka taagan xalka loogu badbaadin lahaa faraaq dastuuri ah dalka. Ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee dalka ka jira in markaasi lagu mashquulin gurmadka shacabka Soomaaliyeed ee saameysay abaarta markaasi daba dheeraatay, lana muujiyo tallaabooyin cadcad oo wax ku ool ah isla markaana lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan. Sidoo kale dhegeystayaal waxaa wararka kale ay sheegayaan in hadda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayo ama uu ka fikirayo waxyaabaha ama tallaabooyinka xiga uu qaadayo ku aadan qaabka uu ka qabsoomi lahaa shirka loogu malansan yahay inuu ka dhaco gudaha magaalada Muqdisho. Mucaaradka gaar ahaan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaan la ogeyn go'aanka ugu dambeeya ay qaadan doonaan haddii dowladda federaalka Soomaaliya dhinaceeda aan wax tanaasul ama ku aadan jabi uu shirka ku furmayo ay la yimaadaan ama ay la imaan waayaan, taasi oo caqabad ku noqon karta in madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland inay markaasi deegaanadooda dib ugu laabtaan, taasna ay ka dhigi karto hubanti la'aan siyaasadeed uu dalku galo maadaama madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ka harsan tahay wax ka yar 3 bilood. Dhegeystayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena xulka siyaasadda. Intaynu muuqaalkan kan xiga dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.